dabcan waxaan ognahay maraykankuna in uuba aaminsan yahay in xamaas ay tahay urur argagixiso. xafiiska xamaas aanu imaano, xafiiska xamaas sooyaalkiisa qorta qatar iyo sababta dibadda looga dhiga xafiiska. runtii waa mahadsan tahay. waxaa la furay xafiiskan sanadkii 2012 waxaa la sheegaa inuu lahaa soo jeedinta xilliga madaxweyne Obama xilligiisii, maxaa yeelay markasta oo dhibaato Gaza ka dhacdo meel lagala macaamil ma jirto. marka in xafiis wuxuu ahaa qaab waa dhul dibadeed Gaza xamaasiyiinta ku lahaayeen meel ka baxsan Gaza. runtii xafiiskaasi waxaa deganaan jiray garabka siyaasadda Ismaaciil Haniye oo Iiraan lagu dilay, iyo garabka siyaasadda iyo garabka warbaahinta la hadlo dhan oo go'aanada saxda ah ka fula ayay ahayd. marka waxay ahayd meel adduunyada ay kula macaamilaan oo wixii go'aano ah oo laga sugayo ama wada hadal nabadda ha noqoto ama arrin sii deysmo maxaabiis haddii la kala haysto ha noqoto. marka waxay ahayd xafiis qaab diblomaasiyad camal u shaqaynayo oo adduunku kala macaamilo. runtii qatar waxay ka mid tahay wadamada inta badan dagaalada iyo meelaha dagaalada ka jiraan ka faa'iida oo wada hadalla dowladaha isku soo. waxaan xasuusanaa Taliban ayaa muddo dheer xafiis ku lahaa oo wada hadalladii Mareykanka iyo reer galbeedka halkaas ayay ka dhici jireen. marka xafiiskaas sida uu soo ahaa 12 sano ka bacdi xafiiskaasi shaqadiisii way soo dhamaatay. waxaana la rajeynayaa in hogaamiyaashii Xamaas way ka baxeen Dooxa. waxaa la rajeynayaa inay meelo badan ayay dadku focus ka saarayeen. Turkiga ayaa u badan tahay in ay madaxda aadi doonaan, laakiin inta meesha loo rari karo ama meesha ay aadi karaan aanan u imaanin. tusaale ahaan qatar waxay mar walba dhexdhexaadisaa ururada galbeedka u yaqaanaan argagixisada ee dunida ka dagaalama. waxaan ognahay toddobaadkan mid ka horreeyey in CNN ay daabacday warbixin oo uga hadlaysa xafiiskaas in la xirayo. warqad wasaaradda arrimaha dibadda ka soo baxdayna lagu sheegay arrinkaas in waxba kama jiraan. haddana waxay tilmaamayaan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda oo Aljazeera la hadlayay mar sii horreysay waxa uu sheegay in uusan ogeyn xitaa meesha ay ku sugan yihiin Xamaas ama hogaamiyaasheedii qaybta ku sugnayd Dooxa ee ka baxday. maxay ka dhigan tahay arrinkeeda in qatar mar ay inkarta xafiiskaas oo ma xireynay dhado haddana ay soo baxda arrintaas iyada se maxaa ku kalifi kara qatar maxaa fashilmay doorkeedii dhexdhexaadin mise wax kala jira. runtii qatar culeysyo fara badan ayay reer galbeedka muddooyinkii ugu dambeeyey saarayeen oo intuu dagaalku bilaabmay. maxaa yeelay qatar garwadanka ugu weyn ee nabadda gobolka bariga dhexe ahayd. haddii dagaalkii wax faa'iido ah natiijo ay ka soo heli weysay, runtii waxay u badan tahay inay albaabada iska soo laabanayso. hadda madaxdii way baxeen, sida wasaaradda arrimaha dibadda u sheegeen madaxdii Xamaas kuma sugno Dooxa, meelo kale oo aan ilaa hadda lama way qariyeen, laakiin xafiiskaasi shaqadiisii way dhamaatay. aad iyo aad okay xafiiskaas meesha loo rari karaa intee loo rari karaa baa is dhihi kartaa. runtii Xamaas inkastoo urur ay xogaha sirihiisa aad u xadidan yihiin maadaama ay ka baqayaan sirdoonno wadamo badan, haddana waxaa loo malaynayaa Iiraan in loo rari doono. mararka qaar waxaa dhici kartaa in loo rari doono Istanbul, Turkiga, maxaa yeelay Turkigu xafiisyad dadban ayay xamaasiyiintu ku lahaayeen Turkiga. dhowr jeer Ismaaciil Haniye ayaa booqday Istanbul oo la kulmay Erdogan. marka in xaggaas loo rari doono, inkastoo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka warbixin aan saaka akhrinayay ay sheegtay in Turkiga looga digayo inuu urur argagixiso uu martigeliyo, isagoo naata ka tirsan inuu urur argagixiso martigeliyana inay qalad tahay. laakiin Turkigu uma arko Xamaas inay yihiin urur argagixiso, wuxuu arkaa urur dhaqdhaqaaq dad xorriyadooda u dagaalamaya oo sax ah oo ka soo horjeeda Yuhuud iyo dad duulaan soo qaaday. isku aragti ma okay aragtida reer galbeedka xafiiskan muxuu noqon karaa marka ama haddaba muhiim tahayba. runtii aragtida waxa waaye in la kala dhantaalo awoodda oo caalamka laga qariyo warbaahinta iyo waxa ka jiro iyo inay Xamaas ay yihiin urur argagixiso oo adduunyada kale ka go'doonsan. saasay rabaan reer galbeedku. marka qatar xafiiskan wuxuu ahaa iyo Xamaasba meel lagu kala warqaato oo xogaha waxa soo dhaca adduunyadana lagula macaamilo, safaaradaha kula macaamilaan. dhaqaale fara badanna markii dunida markii la rabo tusaale ahaan in loo gurmado Falastiiniyiinta, bangiyada iyo lacagaha loo marayo qatar ay ahayd. marka qatar waxay in aan laga maarmi karin runtii. okay ma is dhihi karnaa marka tusaale ahaan haddii xafiiskan Iiraan loo raro ama Turkiga loo raro, maadaama qatar ay tahay dowladda soo tijaabiyey oo waxyaabo badan soo dhexdhexaysay, way buuxin karaan doorkii qatar ay ka baxday maanta. runtii actually waa dhici karta inay buuxiyaan, marna ma dhici karto. maxaa yeelay markaad fiirisid qatar runtii xil weyn iska saareen ammaanka madaxda
xamaas oo aad loo raadiyo surdoonada reer galbeedkuna aad u raadiya meel kastoo ay jaanis ka helaan ay isku dayi jireen inay ku qaarajiyaan marka haddii turkiga loo raro waxa macquula in weeraro ay dhacaan in xaafisyadooda la weeraro iranna waxa waaye aad surdoonka israa'iil uu dhex galay marka laakiin haddana bun haddii la waayo bedelkiisa la helaa halkii laga dhihi jiray lagama maarmaan waxa waaye in iiraan ay sal dhigtaan turkigana ay marmar booqasho ku tagaan aad iyo aad maxaan dhihi karnaa mustaqbalka xafiiska siyaasadeed ugu dambeyn adoo mawduucan soo gabagabeynaya xafiiska siyaasadda ee xamaas ay dibadda ku leedahay mustaqbalkiisa muxuu noqon karaa burburi karaa mise saan isleeyahay qadiyadda dadka xorriyadda falastiin u dagaalama mar kastaba shaksi keliya kuma xirna waa gruub qof hadduu dhinto qof kale bedelaya waa wax soo jireen marka afkaarta inuu sii jiro iyo xafiiskani waa wax muddo dheer qaadanaysa ma aha wax maanta iyo berri kusoo dabcan haddii xafiiska dowladuhu ay diidaan galbeedkuna sida hadda aad sheegtay turkiga looga digayo maraykanku uga digayo in xafiiskaas ay martigeliyaan la waayo cid ku dhiirato soo meesha ka imaanaysa xafiiska siyaasadda ama garabka siyaasadda ee xamaas inuu meesha ka baxo marnaba lama weynaayo dowlad martigelisa iiraana ugu soo dhow haddii turkidu diidan cataa oo nato iyo reer galbeednimada lagu cadaadiyo iiraan ayaa diyaar u ah inay martigeliso oo runtii danab fara badanna ku haysato bariga dhexe iyo dagaalada ka socda inay u adeegsato xamaas dabcan waxaan dhihi karnaa iiraan door weyn ay ku leedahay dagaalka xamaas intaas waxaan uga soo tegaynaa dhacdooyinka u dambeeyey ee dagaalka xamaas iyo soo xiritaanka xafiiska xamaas iyo mustaqbalka sida uu noqon karo toddobaadkan sidoo kaleeta waxaa dhacday dhacdo weyn oo markii ugu horreysay ka dhacday bariga dhexe taasi oo ah in ururka ama kooxda xuutiyiintu ay weerar gantaalaha la beegsadeen markab laga leeyahay turkiga gaar ahaan uu leeyahay xisbiga waddanka hadda hogaamiye ee Erdogan uu madaxda u yahay dabcan waa markii ugu horreysay weerarkan uu dhaco waxaa la leeyahay markabkan Israa'iil uu waday hub hadda wax yar waxaan ka soo sheekaynay in xamaas ay suuragal tahay xafiis inay ka furato Istanbul iyo Turkiga dhanka kale markaan fiirino badacas waxaa ama baxrul khaliijka ay dhahaan haddaanan qaldanayn weerarkaasaa ka dhacay toddobaadkan labada dhacdo haddaan isku xirno maxay ka dhigan dhihi karnaa runtii intaan isku xirin waxaan rabnaa inaan waxyar isla bidhaamino waxaa ka jira badda cas marka uu bilaabmay duulaanka Gaza 2023kii xuutiyiintu iyagana waxay bilaabeen inay beegsadaan dhaqdhaqaaqa wadamada reer galbeedka maraakiibtooda ee maraya Red Sea oo dhan ku dhawaad 90 markab ayaa la sheegaa in weerar lagu qaaday runtii markaas u fiirisid wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga qaabkii wax u dhageysay wuxuu ahaa in weerar markab calanka Panama wata laakiin asalkiisa Turkiga laga leeyahay gaar ahaan magaalada Anadolu in la weeraray laakiin faahfaahin guud ma bixin maxaa yeelay hadda colaad gooni ah oo ka dhaxaysa Turkiga iyo xuutiyiinta ma jirto laakiin weerar ku qalad inuu yahay waa dhici kartaa weerar u kasta inuu yahay waa dhici kartaa laakiin warbixinada soo taraya waxay sheegayaan inuu yahay weerar xuutiyiinta ay fuliyeen oo ka dhacay badda cas aad waxaan aaminsanahay weerarada marka bilowdan xuutiyiinta in la sameeyey urur ama way ku midaysan yihiin Mareykanka iyo UK ayaga weeraradu intee ku dambeeyay ma isla karnaa ay ku beegsanayeen xarumaha xamaas xarumaha xuutiyiinta runtii Mareykanku wali duulimaadkiisii waa sii wadaa markastana wuxuu bambangareeyaa meelaha uu isleeyahay xuutiyiinta magaalooyinka xeebaha ah oo inta badan ay weerarada ku soo qaadaan weeraradii ugu dambeeyay asbuucyadii hore ayay fuliyeen marka waa weeraro toos oo markastaba isleeyihiin meeshii khatar amniga maadaama Red Sea oo dhan waxaa la sheegaa maraakiibta dunida kala bar maadaama bari iyo galbeed isku xirto China iyo marin muhiima waayo oon laga maarmi karin marka xabsidaas way jirtaa laakiin markastaba Mareykanku way weeraraan inay weerar toos ay ku qaadaan xarumaha xuutiyiinta iyo inay si dadban diyaarada drones u adeegsadaan oo kala ah marka weeraradoodu wali weerar aan wali joogsan oo wali socdoba Turkidu ma ka hadashay markabkan inuu Israa'iil u socday iyo in kale maya kama hadlay wax faahfaahinta wasaaradda arrimaha dibadda waxay ahayd inuu weerar dhacay xuutiyiintu ay ka dambeeyeen markabkana laga leeyahay asalkiisu Turki laakiin caanan Panama watay marka waa macquul in ku talagal loo weeraray waana macquul inaysan yani u haysteen wadan reer galbeed inuu leeyahay salahan haddii ay sax tahay oo markabkan uu socday Israa'iil wuxuu doonaba ha wada isla markaana Turkidu way dhanka la isku muujinayaan inay garab taagan yihiin waxa ka socdo marinka Gaza kana soo horjeedaan duulaanka guumaystaha maxay ka dhignaan kartaa mas dhigi karnaa runtii waxay ka dhigan tahay qiyaano lagu sameeyay Turkidu ay ku sameynayaan dagaalka bariga dhexe
Turkida iyo madaxweynaha Turkiga iyo shacabka Turkida inta badan waxay garab istaagayeen shacabka Falastiin in xataa waxay jareen cilaaqaadkii dhaqaale ee Israa'iil ay lahaayeen markii duulimaadku bilowday. Taasina waxay sababtay in dhaqaalihii Israa'iil oo ku lahaa Turkida in hoos u dhac weyn dhaqaale uu saameeyay. Marka gacan bidixeen waa dhici kartaa, laakiin sida hadda xogaha markabku sheegayeen waxa waaye inuu markabkani laga leeyahay calanka Panama uu siday Turkiguna uu lahaa. Faahfaahin dheeraad ah hadda saxda ah oo laga heli karaa ma jiro. Inuu hubsiday warbaahinta qaarkood oo qoraysa, laakiin ilaa hadda ma hubano. waa mahadsan tahay intaasi waxaan kusoo gabagabanaynaa barnaamijkeennii diiradda dunida oo aad alaaba kala socotaan shaashada tv-ga RTN studiisa magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo